halkan waa janaalkeena xogta dalka qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweyne Dani oo saddex wado midkeed ayuu qaadi doonaa guuldarro ama dhibaatooyin kale oo ka dhalan kara qaybaha kala duwan ee deegaanada Puntland ayaan daawadayaal warkeena ku soo qaadan doonaa iyo Cumar Filish oo eedeymo kala duwan loo jeedinayo iyo ergeyga cusub Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shaqadiisii ugu horeeyay galay ayaan daawadayaal warkeena idinku soo gudbin doonaa haddaba daawade haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like share iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaabo madaxweyne Dani ayaa saddex wado midkeed ayuu qaadi doonaa amba guuldaradii doorashooyinka kadib waxaa si rasmi ah u soo dhamaaday 2 sano oo orod loogu jiray qofkii bedeli lahaa madaxweyne Farmaajo isbedelka waxaa ku baxay waqti iyo dhaqaale aad u badan waxaana uu khatar geliyay xaaladda dalka oo dhan doorashooyinka waxaa ku dhacay dhibaatooyin fara badan macadka nabadii nolol oo hogaaminaya madaxweynaha xilka ka degay ee looga adkaaday doorashada Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo laba macadka midowga musharaxiinta oo hogaaminayeen labadii madaxweyne hore inkastoo ay aad istiraatiijiyad wanaagsan ee ula ciyaareen Farmaajo macadka saddexaad uu hogaaminayay madaxweynaha Puntland oo taageero ka haystay mid kamid ah dowlad goboleedyada oo ahaa Jubbaland guusha waxay raacday midowga musharaxiinta waxayna soo saareen madaxweynihii sideedaad ee sanadkii 2017 ku guuldareystay dib u doorashadiisa waana Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda la filanayo inuu fursad labaad uu dalka u helay inuu hogaaminayo maadaama uu hadda yahay madaxweynaha 10aad ee Soomaaliya guusha ugu weyneed ee Puntland ay sheeganaysa ayaa ah in meesha laga saaray nidaamkii Farmaajo inkastoo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu dadaal badan ku bixiyay sidii uu guul ku gaari lahaa laakiin nasiib darro ma calfan in uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya waxaana la qiyaasay in maamulka Puntland ay ugu baxday doorashada dhaqaale gaaraya 25 milyan oo dollar taasi oo ka soo bilaabatay soo xilista 11 sanadka 2021 dhaqaalihii ugu badnaa ayay ku bixisay soo saarista xildhibaano badan ololaha doorashada iyo sidoo kale habeenkii doorashada iyo lacagihii kala duwanaa ee ku baxay doorashada madaxweyne Dani shaqada badan geliyay ayaa dhaqaale badan ku bixiyay waxaana dhamaystay hadda wax kasta oo ku aadan arrimaha doorashooyinka sideesa Puntland uu haatan ugu laaban doonaa madaxweyne Dani oo ku guuldarro doorasho kadib dib ugu laaban doona Puntland waxa uu safar ku aaday dalka Kenya waxaana wararka ay sheegayaan in safarka uu ku tagi doono sidoo kale dalka Imaaraadka Carabta halka wararka ay sheegayaan inuu safar ku tagi doono dalka Jarmalka waxaana si weyn loo filanayaa in madaxweynaha Puntland uu dib ugu soo laaban doono fariisinkiisa iyo maamulka loo dhaariyo oo shaqada kala hadda ka bilaabi doono waxaa jira khilaaf uu asaga iyo sidoo kale hogaamiye ku-xigeenka dalkaasi kala dhaxeeyo waxaana muddo uu khilaafkaasi u ahaa mid si weyn u curyaamiyay Puntland waxaa kaloo qaybsamay xukuumadda waxaana jira wasiiro shaqada uu ka ceriyay Axmed Cilmi Karaash iyo kuwa magacaabay oo aanan dhaqan gelin waxaana taasi u muuqataa curyaaminta xukuumadda Puntland waxaa ka jira abaar aad u daran waxaana inta badan Puntland aysan weli helin roobabkii guga xaaladda nololeed ee dadka ka jira halkaasi ayaa waxay yihiin kuwa dhibaatooyinka ugu daran haatan haysta isbedelka Soomaaliya oo u baahan Puntland ayaa tala mideysan ku leedahay si ololaha qaadida dowladda federaalka cusub iyo ugu dambeyntii siyaasadda Puntland ee doorashada 2024 oo albaabka ka garaacanayso haddaba madaxweyne Saciid Dani oo saddex wado mideed ayuu qaadi doonaa haddii uu guuldarooyinka doorashada kadib iyo dib in ugu soo noqon doono Puntland inuu heshiis la gaaro madaxweyne ku-xigeenka soona dhiso xukuumad tayo leh oo xaaladda adag ee haatan ka jirta Puntland looga hortagi karo in uu dhayo boogihii saameynta doorashooyinka federaalka ku yeelatay Puntland inuu si dhab ah u fuliyo qodobadii lagu xaliyay dagaalkii Boosaaso inuu wada tashi la furo dhammaanba waxgaradka culimada iyo simada siyaasiyiinta iyo mucaaradka ahna ururada siyaasadeed ee si talo mideysan loo dhan yahay Puntland ee u yeelato loogana maarmo xaaladaha hubanti la'aanta ah labo in uu adkaysto siyaasadiisii hore ee looga bartay dagaal inuu ku qaado madaxweyne ku-xigeenka una isticmaalo qaar badan oo kamid ah musharaxiinta waxaa tani u muuqanaysaa inuu Dani weli uu yahay shakhsi doonaya inuu wax waliba uu ka sameysan karo Puntland
hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaana haatan waxaa looga fadhiyaa inuu tallaabooyin adag uu qaadi doono oo ku aadan xaaladaha kala duwan ee haatan ka jira Puntland. dhinaca kalena daawadayaal gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish ayaa weli eedeymo kala duwan waxa uu jeedinaya qaar badan oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish waxay ku eedeynayaan inuu dhibaatooyin dhanka dhaqaalaha uu ka sameynayo qaybo kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxaa si weyn loogu eedeynayaa in dhibaatooyinka tacdiyada ay haatan ka jira gobolka inuu isaga uu sabab u yahay, taasi oo la micno ah in xaaladaha adag ee haatan ka jiro ay noqon karaan mid maalinba maalinta ka dambeysa kasii dari kara. waxaana gudoomiyaha gobolka Banaadir si weyn loogu eedeynayaa in xaalad kasta oo jirto oo noqon karo mid isaga dhibaatooyinka kala duwan ee dhanka ganacsiga gobolka Banaadir hoos u dhacyadooda isaga lagu eedeynayo. qaar badan oo suuqyada magaalada Muqdisho ka ganacsada ayaa waxay sheegeen in ay wax waliba u baahan yihiin inuu xaliyo gudoomiyaha gobolka, laakiin Cumar Filish ma uusan xalin wax waliba ee dhibaatooyinka dhaqaale darrida ee gobolka ka jira ayuu uga sii daray, iyadoo qof walba ay ku eedeynayso in uu wax waliba uu ku tagrifalayo hantida guud ee shacabka iyo sidoo kale in uu waxa uu rabo maalin waliba uu ka sameysanayo gobolka Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir oo haatan culays siyaasadeed oo adag uu kala kulmayo xisbiga UPD ama Dumul Jadiid uu hogaamiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda waxa uu dhulboob badan uu ka wadaa xaafado kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir. degmooyinka gobolka Banaadir ayaa cabasho xoogan laga soo jeedinayaa gudoomiyuhu, iyadoona lagu eedeynay in tacdiyo fara badan uu sameynayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. qaar badan oo kamid ah shacabka reer Muqdisho ayaa hore waxay u sheegeen in uu dhaqaalahooda u urursaday isla markaana uu dhulboob badan uu ka wada xaafado kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir. xaafadaha uu dhulboobka ka wada waxaa kamid ah degmooyinka Yaaqshid, Wadajir, Dharkeenley iyo degmooyin kale sida wararka aan ku helayno, taasi oo u muuqanayso in dhibaatooyinka tacadiyada ah ee gudoomiyaha gobolka Banaadir uu wado ay noqonayso mid aad u sii kordhayso. tii oo jirto waxaa wararka sidoo kale ay sheegayaan in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu dhammaanba shaqooyinka uu ka joojiyay qaar badan oo la sheegay in ay u sacbatumeen doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku guuleystay. dhalinyaro fara badan ayaa waxaa la sheegay oo barahooda bulshada ku taageeray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in shaqooyinkooda uu ka joojiyay, taasi oo noqon karto in Cumar Filish culays kale oo aad u weyn ay ku noqonayso gudoomiyaha gobolka Banaadir. wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in Cumar Filish maalinba maalinta ka dambeysa culeysyada nabad iyo nolol uu haatan uu kula dhaqmayo dadka ka howlgala gobolka Banaadir. xarunta gobolka Banaadir ayaa waxaa haatan ka soconaya qabanqaabo la doonayay in gebi ahaanba jagada looga tuuro Cumar Filish oo haatan ku sugan wadanka Turkiga. inkastoo qaar badan oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ay ka cabanayaan tacadiyada iyo gafafka mararka qaar uu u geysanayo gudoomiyaha gobolka Banaadir, haddana wararku intaasi waxay ku sii darayaan in xaalad kasta oo maalin waliba taagan ay noqon karto mid saameyn badan bulshada ay ku yeelanayso. dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa guddiga abaaraha kulan degdeg ah isugu yeeray, isagoona Cabdiraxmaan Cabdishakuur guddiga abaaraha kala hadlay xaaladaha bini'aadanimo ee haatan ka jirto gobolada dalka, waxaana uu si weyn u sheegay in ay muhiim ay tahay in laga wada shaqeeyo wax waliba horumar ah, isla markaana si weyn loo garab istaago shacabka Soomaaliyeed. xilli Soomaaliya abaar xoogan ay ka jirto, haddana waxa uu si weyn u sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in wax waliba muhiim ay u tahay bulshada Soomaaliyeed, sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada iyo gurmadka abaaraha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaana la kulmay guddiga abaaraha, waxaana uu sheegay inay muhiim ay tahay in laga shaqeeyo sidii loo samata bixin lahaa shacabka Soomaaliyeed. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena xogta dalka saaxiibayaal waa naga intaa. haddaba daawade haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka, wararkeena like, share iyo commentiga noogu dadaala. waad mahadsantihiin. nabadgelyo.